saakay bil kadib maanta ayaa si orada ku soo gaaray. ilaahay ammaan hana siiyo. ilaahay ummadda Soomaaliyeed ha ka qaado dhibta maanta kor saaran ee cudurkan aanan loo haynin magaciisa. ujeeddadii aan orodka ugu imid halkan waxay ahayd ilaahay ha nagu badbaadiyo. waxay tahay waxyaabo la yaab ah. waxaa la yaab ah in la qabtay dekedii lagu qabtay container oo loogu sheegay customka inay ku jirto ama dokumentiga la keenay waxaa ku qoran inuu yahay spare part. wejiga horaa laga dhigay waxa kala gadaal oo dhanna waxaa saarnaa waa khamriga ugu xun. waxaa yaal ilaa iyo 500 iyo googo konta baashi maxay kartoon oo khamri ah. ilaahay idinku dhaariyo waqti waxaa nagu soo dhow ramadaanka ninka waxaa keenay cudurka waddanka maanta nahayo ilaahay hanaga wada badbaadiyo. muxuu u socday intuu u waday runtii booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan customska booliiska canshuura iyo customkaba waa dadaaleen mahad ballaaran ay leeyihiin. waa la qabtay. waxaan jeclahay qolooyinkan u dirnay sawirrada inay ka qaadaan. waad ku arki doontaan aan u malaynayaa spare part iyo afka hore la soo saaray khamrigiina gadaal loo dhigay. waa mahadsan yihiin si gaara booliiska iyo xafiiska customska oo iskaashaday oo qabtay arrintaas. dhawaanna insha allah shacbi weynaa hortiis ayaa lagu gubaaya. waxayna noo tahay ballan ninka khamri mar dambe dalka keena ilaa hadda waa la qabanaya khamrigan baa laga qaadaya laakiin marka loo gudbi doono hantidiisa iyo qofka laftiisa maxaa yeele waa kontrabaan waa xaaraan xagdiinna xaaraan bay ku tahay dhinac kalena dalka looma ogola waa dal mudfin ah. marka aadan waxaan ugu mahadinayaa booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan customska canshuuraha ilaalinta taliyaha ka yahay General Bariise iyo wiilkeena dhalintiyaare ee customka fadhiya oo runtii wasaaradda maaliyadda sida fiican u baaray u arkay meeshan waxba gudbido dadka waxaan oo kala keena inay ku baraarugaan oo ogaadaan wasaaradda maaliyadda ee customka sidaad ku ogeedeen maaha. nidaam baa loo sameeyey waa la wada arkaya waxa meesha soo maraya qalaba tallaabana waa laga qaaday. hadda waxaa un keliya ahayd maanta inaan tusno difaaca aan waddanka uga jirno ee ilaalintiisa weliba gaar ahaan waqtigan oo dhibaatada ay nahayso. insha allahu tacaala intaa ay ka daranna waa la qabanahay. waxaan u mahadinayaa maamulaha customka wasaaradda maaliyadda iyo taliyaha ciidanka booliiska ilaalinta canshuuraha. sidoo kale arrintanu ma aha arrin ku eg ciidanka booliiska customska ma aha. waad aragteen male dhawaantan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka qayb galay xataa oo wuxuu qabtay qaab isla meesha lagu gubay iyo gobolka Banaadir. marka naxariis la'aan cidda rabta inaad waddankan dadkan layso waa la iska dhicinaya. jihaad weeye waa la iska dhicinayaa lama ogola waddanka qaad lama keeni karo. waa mahadsantiin. calaykum